xildhibaano ka tirsan xisbiga Social Democratic ee dalka Sweden ayaa qado sharafeed u sameeyay musharaxa xisbiga UCID Jamaal Cali Xuseen oo maalmahan booqasho rasmi ah ku joogay dalka Sweden. xildhibaanadan ayaa casuumada kadib ay musharaxa iska wareysteen xaaladda guud ee dalka Soomaaliland iyadoo mudane Jamaal uu uga waramay xaaladda siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee dalka Soomaaliland. casuumadan oo ay ka soo qayb galeen dadweyne kale oo reer Soomaaliland ayaa xildhibaanada ka xisbiga Socialka ay ugu tala galeen soo dhaweynta ay u sameynayaan musharaxa xisbiga UCID. musharaxa xisbiga UCID mudane Jamaal ayaa sidoo kale kulan aad u ballaaran kula qaatay magaalada Jönköping ee dalka Sweden jahliyada Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada iyo nawaaxigeeda. kulankan oo ahaa mid aad u weyn ayaa waxaa ka soo qayb galay dadweyne aad u badan oo ay ka mid ahaayeen safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Sweden Marwa Rooda Jaamac Cilmi iyo dhalinyaro kale oo reer Soomaaliland ah oo mutacalimiin ah kuwaas oo jagooyin sarsare ka haya laamaha kala duwan ee xukuumadda dalka Sweden. musharaxa madaxweynaha xisbiga UCID mudane Jamaal oo kulamo kala duwan la qaatay dadweynaha reer Soomaaliland ayaa isagoo ka jawaabaya su'aal ahayd in xisbiga UCID uu ka soo horjeedo in la dhiso wadooyinka dalka Soomaaliland si kulul arinta uga soo horjeestay isagoo xukuumadda ku tilmaamay mid jahwareersan isla markaana waxaan jirin sheegta. mudane Jamaal ayaa sidoo kale ku dhaliilay xukuumadda in hantidii ummadda ay u adeegsanayso si khalad ah isagoo xusay in soo dhaweyntii maayarka Berbera oo sheegay inuu ku biirayo xisbiga kulmiye ay isu raaceen wasiiro iyo madax kale oo badan taasoo uu xusay inay ku baxday lacag gaadhaysa $50,000 iyadoo lagu jiro ayaa habeenkii ugu dambeysay ee campaign ayaa 5 xildhibaan oo aan leenahay burcaa laga saaray dawladda iibsatay si noo reebaan dawladdu waxay isticmaalaysaa dimuqraadiyadda afduubaysa waxaana isticmaalaysaa xoolihii ummadda ee ay dadka danyarta ku taageeri lahayd ayaa baadhiyo loogu dhigaya ama lagu soo iibsanaya si xisbiyada qaranka loo weeqo waa ayaan dar weyn dawladdu waxay isleedahay xisbiyada qaranka weeqi doontaan oo inta budget ciidaaleed waxay ku bixisaa si ay xisbiyada isugu dirto basaasiin ugu dirto rag baa baabuur loogu iibiyaa mar walba sidii ay xisbiyada qaranka u weeqi lahaayeen ay isugu dhafan lahaayeen tana istaraatiijiyadoodu ba ka mid tahay iyo budgetkeedii ay awalba sameyn jirtay laakiin iyadoo ku gubanaysa kulmiyana isaga ku burbur doona hagardaamada uu wado ninkii degada haystay ayaa mar walba kardashay oo naftiisa ugu keenay oo lacagtii xoolihii ummadda laga soo reeyay degada ayaa la isticmaalay laaluush lagu bixinay shararkii lagu bixinay shirbeeleedyada lagu bixinay odayaashii inta la soo fadhiisay la oranayo xoolihii ummadda waxa tiraahdo waxaan taageersanahay xeerkaas waxaan taageersanahay reeyga loo diidana musuq ugu weynaa waddanka ka socda runta hadda doonaysa wadada aan gaabo dimaanaan diidan anagu dawladda tarbiya anaga ma naga maqashay dawladda diidan ma naan oran afkaygana ma hawaana waxyaalaha dawladku masabidaysa ma aragtay adduunka oo inta wasiirkeeda halkaas soo istaago oo oranaya waxay tiri waxay yiraahdeen ergay diiday hadda waa dawlad waa irresponsible waa dawlad waalan weey sidan oo kale qof dadka lama masabido wali maana oran laakiin waxaan niri dawladda beenta xakidayso ummadda intay wada 350 kiiloomitir ay dhagax dhigayso kuwii ay 3 sanadood ka hor dhagax dhigtay ayaa ummadda wali ku turinaysa dhagaxaanta waxaan leenahay war labada waxa fiican idinka oo wadadan yar Hargeysa ee wadanka dhexdiisa wadadii laftirkeedii caasimad ahayd ayaa wali sameyn kari lahayd markaas dadkii been sheegaysan oo oranaysan waxaan dhagax dhigaynaa wado eergaabo oo 350 kiiloomitir. Barkhad Cabdillaahi Maxamed telefishinka caalamiga Home Cable TV dalka Sweden.